بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan dadka Soomaaliyeed maanta waa maalin taariikhi ah, maalin ku suntan dhamaystirka dastuurka qaranka iyo gabagabaynta rasmiga ah ee marxaladii ku meel gaarka ahayd ee muddada dheer soo jiitamaysay. walaalayaal, waad ogtihiin in dalkaani si ku meel gaarnimo iyo dastuur ku meel gaarnimo muddo dheer uu kusoo jiray. maanta waxaan soo gabagabaynay marxaladaas. maanta waa maalin lagu xusuusan doono hanashada guul qaran oo muddo dheer la sugayay, taas oo inaga saartay ku meel gaarnimadii, noona horseeday hanashada hannaan dowladnimo oo ku qotoma saldhigga sharciyeed ee adag. qiimaha ay maanta u leedahay ummadda Soomaaliyeed ma aha oo keliya in la ansixiyey dastuurkii qaranka, ee waa maalin ay ummadda Soomaaliyeed si rasmi ah uga gudubtay marxaladii ku meel gaarka ahayd, una tallawday dowladnimo dhammaystiran oo sharciyad buuxda leh. mudanayaal iyo marwooyin, tan iyo xurnimadii 1960kii Soomaaliya waxay soo martay marxalado kala duwan oo ku salaysan dastuur iyo nidaam dowladeed. dastuurkii 1960kii waxa uu ka turjumayay himaladii gobonnimo doonka iyo midnimada dalka. dastuurkii 1979 waxa uu ku salaysnay nidaamka xisbi keliya ah ee dalka taliya. burburkii dowladnimada kadib, qaranku wuxuu galay xaalad kala guur iyo firaaq sharciyeed. sanadihii 2000 ilaa 2004 waxaa la dhisay dowlado ku meel gaar ah iyadoo la dejiyey axadiyadii ku meel gaarka ahaa. sanadkii 2012 waxaa la ansixiyey dastuur ku meel gaar ah markii ugu horreysay muddo 20 sano ah, kaas oo noqday tiirka dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya. intaa ka horna waxaa jiray qabyo qoraalkii dastuurkii 1990kii oo ahaa isku day lagu doonayay in dalka u gudbo nidaam furfuran oo ku dhisan baahinta awoodda iyo xurmada xuquuqda muwaadinka. inkasta oo aanu dhaqan gelin, haddana waxa uu ahaa ku baraarugsanaan iyo astaan muujinaysa rabitaanka shacabka ee ku dhisan isbeddel iyo dowladnimo ku dhisan ayaduna saldhig sharciyeed. hase yeeshee, dastuurkaas ku meel gaarka ahaa wuxuu ahaa dhiig joojin iyo badbaado qaran. hase yeeshee, wuxuu ahaa heshiis aan weli bislaan iyo sharci sugayay dhammaystir iyo qeexitaan kama dambaysa. walaalayaal, muddadii 14 sano ahayd ee lasoo dhaafay, jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya waxa ay ku shaqaynaysay qaab ku meel gaarnimo ah. ereygaas ku meel gaarnimadu waxa uu noqday dabar sharciyeed iyo caqabad weyn oo hor istaagtay xaqiijinta xasilooni buuxda oo uu dalku gaaro. haddii ay ahaan lahayd dhinacyada siyaasadda, amniga, dhaqaalaha, bulshada iyo xiriirka caalamiga ahba. walaalayaal, maanta safarkaas dheer ee uu qarankeena Soomaaliyeed soo galay waxa uu gaaray yoolkii uu hiigsanayay, oo ah helitaanka saldhig sharciyeed oo dhammaystiran, kaas oo haga howlaha ay qabanayaan hay-adihiisa kala duwan. ummadda Soomaaliyeedna awood u siiya jihaynta siyaasadda dalka. dastuurkani wuxuu sababayaa in la saadaali karo wanaagga iyo horumarka Soomaaliya iyo Soomaaliya dhinacay u jeesato ee u socoto
in la saadaali karo oo lagu saadaali karo sharciyad dastuuri ah oo dadka ay leeyihiin oo ay samaysteen ayaga, taasoo samaynaysa Soomaaliya in maalgelin lagula soo dhiirrado, in cilaaqaadyadeeda caalamiga ah la xoojiyo, inaan lagu soo xadgudbin midnimadeeda dal iyo dad iyo dowladnimo intaba. culeysyadaas faraha badan ayaa ka haray Soomaaliya oo ka degay. ku meelgaarnimadu walaalayaal ma ahayn magac uun, waxay lahayd saameyn ballaaran oo muuqata, taasoo taabanaysay dhammaan hay-adaha kala duwan ee qaranka iyo nolosha muwaadinka Soomaaliga ah iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. saameynta oo aan ka tilmaami karo ismaandhaafkii ka jiray awoodaha hay-adaha dowladda, awoodaha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada oo aan si cad loo qeexin, waxaa ka dhashay muran isjiidjiid joogta ah. hay-aduhuna waxay mararka qaar adeegsanayeen fasiraad iyaga u gaar ah halkii ay ku shaqayn lahaayeen qodobo dastuuri ah oo si cad u qeexan. marmarka qaarna waxaan qabi jirnay qodobo dastuurkeena ku-meelgaarka ku yaallo oo iska hor yimaada. maanta waxaan ka soo gudubnay waxaasoo dhan. xeeldheerayaal Soomaali ah ayaa muddo ku howlanaa inay qodobba qodob kale u eegaan iyo qodobba qodobka kale micnaha iyo fasirka iyo duruucda sharciyeed oo ku yeelanayo. sidaas daraaddeed dastuurkeenu xikmad buuxda oo khabiirnimo iyo la tashi ballaaran oo ummadda Soomaaliyeed loo sameeyey, ciddayda ayadoo iska reebtayoo la tashigaasi aan u baahnaan weynay ama ka maarantay ama kalsooni buuxda qabtay waa halkeeda. tusaale, maareynta maaliyadda, wadaagga khayraadka, midaynta canshuuraha, wadaagga dakhliga iyo qeexidda cidda maareynaysa khayraadka dabiiciga ah waxay ahaayeen qodobo xayiran. maalgashi iyo kobac dhaqaale oo buuxa ma hirgeli karin ayadoo sharcigii ugu sarreeya dalka oo weli ku meelgaar yahay aanuu go-aan cad ka qaadanin, aanuu tilmaamaynin amuurahaas. golayaashii sare ee garsoorka dalka muddo dheer waxay ahaayeen kuwo aan si buuxda u dhisnayn. sababtuna waxay ahayd iyada oo uu weli dastuurku dalka qabyo yahay. sharci kasta oo la damco in la ansixiyo waxa uu ku xirnaa dib u eegista muddada dheer la sugayay in lagu sameeyo dastuurka. dowlad ku shaqaynaysay dastuurku meel gaar ah waxa ay u muuqataa dowlad weli ku jirta kala guur oo aan rasmi noqon. helitaanka kalsoonida ee hay-adaha dowladda matalaad ku yeeshaan dalkuna soo jiito maalgashi iyo heshiisyo waaweyn oo caalami ah oo horseeda yagleelka mashaariic horumarineed waxa ay ahaayeen kuwo ku xiran dhamaystirka dastuurka dalka. ku meelgaarnimaduna waxay ahayd dabarka aan muuqan, dadka intiisa badan aanay arag, balse culayskiisu baaxad lahaa. ku meelgaarnimadu waxay ahayd dabar aan muuqan, dadka intiisa badan aan u muuqan, balse culayskiisu si baaxad leh uga muuqday hanaanka howlgalka ee hay-adaha dowladda. waxaa alla mahadii ah in maanta dabarkaasu furmay, qarankiina uu horay u dhaqaaqay. ballanqaadyadii dhammaystirka dastuurka iyo safarkii guusha ee muddadii ku meelgaarka ahayd lagu jiray hogaamiyeyaashii dalka soo maray
mid walba waxa uu ballan qaaday in uu soo afjari doono ku meelgaarnimada. khudbad kasta oo nin murashax madaxweyne ah uu jeediyo, barnaamij dowladeed kasta oo soo bandhignay, iyo heshiis siyaasadeed kasta waxaa ku jiray halku dhigga ah waxaan dhammaystirayaa dastuurka. hase yeeshee qodobadii dhammaystirka u baahna oo ay ka mid ahaayeen awood qaybsiga, nidaamka federaalka ah, wadaagga khayraadka dabiiciga ah, qaab dhismeedka garsoorka iyo doorashooyinka, waxay ahaayeen qodobo taabanayay awoodda lafteeda. mar kasta oo la gaaro go'aanka ma dambays ah waxaa imaan jiray xisaab siyaasadeed, kalsooni darro iyo dib u dhigis hawshii dhammaystirka dastuurka. dastuurku waa xeer bulsho oo ninka siyaasiga ah ee hogaamiyaha dalka iyo dadka inuu u noqdo rabaa xadidaya, u yeelayo xuduudo aanu ka bixi karin. sidaas daraaddeed niman badan, rag badan oo hogaamiye inay ka noqdaan dalka ku fikirayo waxay rabaan in aanay xuduud yeelan, dastuur xadidaya aanu jirin, maalintaa wixii la quman ay sameeyaan. dastuurkuna wuxuu dhisayaa xayndaab dhexdiisa in lagu shaqeeyo mugii bannaankiisa aan loo bixi karin. waxaa daliil u ah oo caddayn u ah dastuurka dib u eegista aan ku samaynay ee 2012 la sameeyey ee ku meelgaarka ah lafsadiisa inaan ku dhaqmi weynay, isaga oo yaalla dastuurka ku meelgaarka ah in mar walba loo baxayo heshiis siyaasadeed aan wax ku xallinno oo bannaanka ka ah oo ka soo horjeeda wixii dastuurka ku meelgaarka ku qoraa. sidaas daraaddeed maanta kadib heshiis macmal ah oo aan dastuurka lug ku lahayn oo dad isku garteen ayagu waxa ay rabeen inta isku toosisteen waxa ay shakhsiyan rabeen ay uga heshiiyeen masiirka ummadda inaan lagu go'aaminaan rabnaa. dadka Soomaaliyeedna waxaan u sheegaynaa xaqa ay u leeyihiin tala la og yahay berri sida ay noqonayso in wax lagu go'aamiyo. dastuurku waxa uu tilmaamayaa dowladnimada, awoodda dowladnimadu sida ay u ekaanayso berri oo aan weli la gaarin, oo aan la garanayn ninka imaan doona hoggaanka dalka iyo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska maxaan ku rahdaa garsoorka iyo xafiiska xeer dejinta. dadka hoggaanka imaanayo ee aan la garanaynin siday u dhaqmayaan ayaa maanta la yaqaanaa. laakiin inaan la aqoonin xeerjaja bannaanka lagu sameeyo, la yidhaha dastuurka waa la dhaqan, dib baa loo dhaqan geli doonaa, baarlamaanka dambe aan dhaqan geli doono, intaa yeeli doono, baarlamaanka dambe imaanayana aan u diidno inuu dastuurka dhaqan geliyo, ee baarlamaanka aan hor istaagno, ee aan dagaal muujino, ee aan qaarkeen ka baxno, oo qaarkeen aan caqabad ku noqono, xataa nidaamkii baarlamaaniga ah aan hor istaagno. suurtagal maa ummadda Soomaaliyeed mana qabataan qabnaa. sidaas daraaddeed dastuurku waa heshiis bulsho oo dadka hogaamiyayaasha ah waxay maalin walba dastuurka xagga noo dhige maxaan yeelnaa jamhuuriyadda saddexaad sanadkii 26 ay ku jirtaa oo ay dastuurka bannaankiisa dowladnimada lagu maamulayo, dastuur la'aan dowladnimada la maamulayo, oo dastuurkii qabyada ahaa ee lagu heshiiyey xataa inta laga tillaabsado bannaankiisa lagu heshiinayo. waxaan diidannahay dastuurka bannaankiisa in lagu heshiiyo asoo dastuur yaallo. maanta dastuur joogto aan qabnaa. ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa ha ogolaanina dastuurka inta meel la iska dhigo annaga oo shakhsiyaad ah masiirka ummadda inaan u heshiino oon xagga intaan istaagnaa dhaan maya saanaan yeelina, dastuurkaa naga dhaafa. dastuurkaasi hay-adaha dawliga ee noo dhiman ee uu dhisayana waa dhisaynaa ilaahay idankiis, waxa uu tilmaamayana waa qabanaynaa, howlaha noo harayaan qabanayna oo ay dimuqraadiyiinta ugu horreyso. dastuurkii ku meelgaarka ahayna waa ku yiileen, kana waa ku yaallaan. wax cusubaa lala yimiday, dastuur cusubaa lala yimiday,
كان لغا دعي معها قضب شن iyo 10 cutub oo ka koobna dastuurkan 15 cutub oo ka kooban yahay mid kasta dib loo eegay waxaan ku habooneen wixii iska hor imaanayay waxaan maanta muxuu la jaqad ummadda Soomaaliyeed ee lala soo tashaday wixii ay sheegeen yaa ku yaalo waana dhaqan gali doona waana lagu dhaqmi doona wuuna soconayaa ilaa idinkiisa ilaashada dastuurka ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo joogan waxaan u baaqayaa ilaashada dastuurka ilaaliya haddii wadcigu isbedelo duruuftu isbedesho waxaan maanta jirin ay soo kordhaan dastuurku waa heshiis bulsho dib inta loo eego waa lagu dari karaa wixii nagu soo kordho wixii caqabad oon soco karin oo laga dhex arko waa laga bixin karaa laakiin waa inaan wax leenahay waxaas haddii la bedelayana sida loo bedelayo dastuurka sheegaya asaa qorayo oo dhahayo haddii wax dhiman wax cilad ah ay ka soo baxaan sidaas iyo sidaas wadadaasaa la maraya oo lagu bedelaya rabitaankayga maaha rabitaanka mid kale ma aha rabitaanka koox iyo degaan gaara ma aha marka dadka Soomaaliyeed intaasaa ogaadaan taariikhdu mar walba waxa ay maciinsataa jiil go'aan qaatay oo dhiiraday ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka baryayaa kuwii dhiiraday ee go'aanka qaatay jiilka maanta jooga in ilaahay ka dhigo baarlamaanka 11aad waxa uu qaatay mas'uuliyad taariikhi ah waxa uu galay dood furan wada tashi qaran iyo falanqayn qoto dheer oo bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan lala soo tashaday waxa uu wajahay qodobadii xasaasiga ahaa ee muddo dheer la hareer marayay ee banaanka looga tashanayay ee danaha gaarka lagu saleynayay waxaas oo dhan ayuu baarlamaanka inta wajahay oo soo dhiga meesha waxa uu na muujiyay dulqaad tanazul iyo bisayl siyaasadeed sidoo kale dhankayga waxa aan dalka ku hogaamiyey jihada siyaasadeed ee na gaarsiinaysa xaqiijinta in geedi socodka looga baxayo ku meelgaarnimada aan mar kale dib u dhicin baarlamaanka dambaa yeeli doonee hadda aan iska sii soconno oo aan macmalkan isaga sii soconno aniga waa ii cuntami weyse ummadda Soomaaliyeedna uma qaadanto baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya oo dadka Soomaali 20 milyan Soomaalida wakiilka ka ah na waa u cuntami weyse walaalayaal anigu ka madaxweynaha jamhuuriyadda ahaan waxaan dhiirigeliyey wada hadal isu soo dhawaansho iyo go'aan qaadasho ku dhisan dan qaran kana sarreysa xisaab gaar ah waxa aan go'aansaday inaan gacan ka geysto xaqiijinta ballanqaadyadii aan aniga iyo siyaasiyiinta saaxiibaday ah u ballanqaadnay in aan dastuurka dhammaystirayno ummadda Soomaaliyeed maanta ballanqaadkaasi waxaan markhaati gashanayaa ummadda Soomaaliyeed aniga aan ballanqaaday waa ka soo baxay nasiib darro kuwii ila taagnay ila midka ahay ee ila ballanqaaday ee qaarkood xildhibaano ee baarlamaanka inta soo dhex istaagay ka hadlay ee ra'yigoodii dastuurka baarlamaanka dhexdiisa ka jeediyey ee ra'yigii ay jeediyeen baarlamaanka inta u qushuucay oo qaatay ee maanta haddana diidan xaggeen ku dhammaanaa walaalayaal haddaan nahay siyaasiyiintii waa inaan leenahay meel aan ku dhammaanaa dadka iyo dalka iyo diintaba waa inaan ku hogaaminaa ballanqaadyadeenna cadcad oo aan fulino ilaa ay naga hor timaado awood aan ka fulin weyno hadday timaad waa halkeeda bini aadanaan nahay waa laysu cudur daaraya laakiin anagoo fuli karno baarlamaankii heegan u yahay guddiyadii farsamada iyo sharciga u sameynaya ee heegan u yahay dastuurka tilmaamaya qaabkii dastuurka kumeelgaarka ah in loo dhammaystiraa isaga dhexdiisa ku qorayd ee tilmaamaysay annagoo haysano inaan haddana
aan meelaha derbiyada madax ku dhufan oo aan danaha gaarka aan waxayn damaanad ma qabo xasan sheekh dastuurkan aniga uu iigu hiilinayo looma dhigin laguma fikirin laguma salayn inuu aniga ii hiiliyo ummadda soomaaliyeed oo aan shalay ka ballan qaadnay inuu u hiiliyaan rabnaa waana u hiilinayaa maanta waxaan si kalsooni leh u oran karaa rafaadkii ku meelgaarnimada waa laga gudbay ballanqaadyadii siyaasiyiinta ee muddada dheer soo laalaabanayay maanta ayay hirgaleen walaalaha soomaaliyeed ee siyaasiyiinta ana waxaan ugu baaqayaa war nin unbaa madax ka noqon lahaa dalkan maalinta dastuurka dhammaystirmayo waana maanta ilaahay idinkiisa aqbala ku qanca dood dastuurka barbar tiilay oo dastuurka intii laga doodaya lasoo barbar dhigay oo la yidhi kanaa ka fiican oo aan diidnay ma jirto dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno dood qodob cutub dastuurka ka tirsan oo aan brobosal ahaan loo soo jeediyey oo guddigii farsamada ee madaxa bannaanaa iyo guddigii korjoogtaynta ee baarlamaanka uu soo doortay ay soo sameynay keeneen ay soo bandhigeen ee laga dooday ee dood kale lasoo barbar dhigay mid kale oo waa ka wanaagsan tahay laleeyahay lasoo barbar dhigay oo la diiday ma jirto dadka soomaaliyeed inuu sheegaro waa la bedelay qodob kasta oo dood lasoo barbar dhigay waa la bedelay dood ma barbar dhigayo ee dastuurkan meel dhig maba laga hadli karaba xagga iskaga dhig ee aan ka hadalno siyaasadda aan ka heshiino taas waa midda aan diidnay nama qabato mas-uuliyadeenna iyo caqligeenna iyo dadnimadeenna iyo diinteenna ma qabato shacabka soomaaliyeedna ma qabato walaalayaal farqiga ugu weyn oo meesha ka jirana waa meeshaas waad weydiin kartiin walaalaha siyaasiyiinta ah maxaad qabteen oo la diiday waad dhihi kartiin kuwii waxay qabeen noo keenay sidoodii bilxaraf ayagoo aan ku daray kuwa aan siyaasiyiinta ahayn culimada ayaa ra'yi qabtay oo dhahday dastuurku qodobadan inay sidaan u ekaadaanaan rabnaa siday ay soo jeedeen ayagu soo qoreena loogu daray niman siyaasiyiin ah qabsadeenaa dheen qodobkan in kan lagu bedelaan rabnaa kan in lagu bedelaan rabnaa qodobada qaarkoodna lama qurxanayn laakiin in la wada jiro inaan la kala tegin daraaddeed ayaan u qaadan oo dastuurka loogu daro loo aqbalay siyaasiyan go-aan siyaasadeed markay u baahnayd lagu aqbalay ku meelgaarnimadii waxay noqotay taariikh laga soo gudbay walaalayaal layskuma beerlaxawsan karo loona noqon maayo qoraxdii shalay dhacday maanta sooma bixi karno waagii saaka baryey meeshiisii qoraxda inta ku celino waagii haddaa soo barya ma dhihi karno dastuurka ku meelgaarka ahay iyo ku meelgaarnimadii waa qoraxdii shalay dhacday maantaan qorax cusub noo soo dhalataan joognaa taasaan ku dhaqaaqaynaa taasaan ku gudaynaa taasaan ku meel maraynaa meel kasta ku tegaynaa walaalayaal waxaan u gudubnay dowladnimo dhammaystiran oo sharciyad leh waxaan jebinay meertadii dib u eegista dhammaystirka dastuurka ee muddada dheer soo joogtay baarlamaan usii idmarayay oo baarlamaan kasta markuu yimaado wax ka qabatagaba la hakinayay oo inta la waxaynayay waxaan xaqiijinay in aanay dowladda soomaaliya dib ugu sii jirin xaalad ku meelgaarnimo ah waa xaqiijina maanta kuushani waa mid wada jir ah astaanna u ah bisaylka siyaasadeed ee qaranka soomaaliyeed uu gaaray xilli kasta dad cabsada oo guusha iyo nabadda mugay soo dhowaata cabsada oo gadaal aado waa la arkaa dadka intiisa badan ee waxgaradka ah ee wanaagsan ee maxaanku rahdaye damiirka dadnimada iyo diinka leh ee dowladnimada rabo waa kuwa in hore loo socdo maalinba dowladnimada tiir lagu sii daro maalinba tiir lagu sii daro ilaa aan faceen meesha uu joogo aan soo istaagno dhammaystirka dastuurka ma ahayn howl deg deg ah oo deg deg ku timida balse waxay
ay ahayd hawl muddo dheer lagu howlanaa saldhiggeeduna ahaa dulqaad wada tashi habraac sharciyeed oo la samaysto oo laysku raacay tanasul laga sameeyo wixii caqabada baarlamaankii sagaalaad waxa uu bilaabay dib u eegistii ugu horreysay ee nidaamsanay baarlamaankii tobanaad waxa uu sii amba qaaday doodihii iyo diyaarintii qodobadii saldhigga u noqday go'aanka kama dambaysta ah ee dhammaystirka dastuurka baarlamaanka 11aad ee maanta jira waxa uu noqday golihii soo afjaray marxaladii ku meel gaarnimada ee muddada dheer lagu soo jiray isagoo dhammaystiray dastuurka qaranka ansixintiisana u maray hanaan hufan oo sharciga waafaqsan waa la wada daawanayay nin maanta dacwad wuxuu ka keenayaa maxaa xildhibaanadu ay isugu wada raaceen dastuurka oo qaar u diida war kuwii diida waa ka maqnaadeen guryahooday seexdeen meelo kaley aadeen laakiin wax la diidaa meesha ma oolin masiirka ummadda qurxoonaan ayaa yiilay waa la wada aqbalay waad arkayseen lama qarin guri mugdi ah laguma codayn meel xiran laguma codayn idaacadaha dalka iyo kuwa dibadda oo dhan oo live ah ayaa ku jirta maalintii markii la codaynayay oo la tirinayay oo la xisaabinayay oo lagu dhawaaqaya go'aanka baarlamaanka ka bixista ku meel gaarnimada waxay furaysaa bog cusub dhisidda golayaasha garsoorka iyo dhammaystirka hay-adaha cadaaladda ee harsan kala saaridda iyo qeexidda awoodaha dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada sugidda nidaam maaliyadeed oo midaysan u diyaargarowga doorashooyin qof iyo cod ah oo ku dhisan dastuurka sugan ee dhammaystiran hadda wixii ka dambeeya dood kasta waxay ku dhici doontaa hab dastuuri ah sharci kastana waxa uu ku taagnaan doonaa saldhig adag oo dastuuri ah dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego ballanqaadyadii dadka soomaaliyeed aan ka ballanqaadnay intoodii badnayd way fuleen kuwii dalka gudihiisa ahaa iyo kuwii dibadda ahaaba inna way socotaa xoreynta dalka ee argagixisada laga xoreynayay way socotaa dejinta iyo habeynta siyaasadda casriga ah way socotaa oo doorashadii qofkii cod ahayd waddadeedii ayaan ku taagannahay dadka soomaaliyeed oo walaalayaal waddadaas waa waddo loo aayayo shacabka maanta jooga u aayaya owlaadeenna iyo jiilasha birri imaanayana ay u aayayaan inna laga weeciyo yaan la isku dayin inna laga weeciyo raalli ha ka noqonin tabasho kasta oo jirtana dastuurka maanta jira dhexdiisaan ku xalli karnaa wixii dhaqan iyo habnololeed ah dhaqankii habnololeedkay leeyihin ha aadaan laakiin wixii sharciyad dugsan xuquuq dugsan dastuurkan dhexdiisaan ku xallinaynaa maxkamadihii iyo hay-adihii garsoorka noo xallin lahaa qaarna waa dhisan yihiin kuwa dhimanna waa dhammaystiraynaa shacabka soomaaliyeed oo walaalayaal guusheeni ma aha keliya inaan dhammaystirnay dastuurkeennii muddada dheer qabyada ahaa balse waa in maanta dowladnimadeennii qaangaartay yeelatay saldhig dowladnimo oo adag oo dhammaystiran waxaan si wada jir ah uga baxnay wixii muddada dheerna dabrayay ee ku meel gaarnimada ahaa waxaan si wada jir ah u dhisnay saldhigga qarannimadeenna waxaan si wada jir ah u xaqiijinnay mustaqbalka sharci ku dhisan ilaahay ha barakeeyo jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ilaahay ha barakeeyo isku dayada iyo dadaalka dadkeenna ay isku dayayaan inay wanaag iyo horumar iyo deganaanshiyo dowladeed iyo in ay ku noolaadaan qabka iyo maanka suuban ee dunida ay ku nooshahay waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa ilaahay inuu mideeyo dalkeenna
hana ku hanuuniyo cadaalad midnimo horumar ilaahay waxaan ka baryayaa dadkeenna qalbigooda inuu isu soo dumo bisha barakaysan ee ramadaan awgeed ilaahay waxaan ka baryayaa quluubteenna inuu isu soo dumo ilaahay waxaan ka baryayaa tubta toosan iyo talada toosan inuuna waafajiyo ilaahay waxaan ka baryayaa mustaqbalka wanaagsan ee ummaddan ay leedahay inuu tusiyo wax kasta inaan ku wanaagsanaan ganacsi ku wanaagsanaan nabad iyo amni raadinteeda aan ku wanaagsanaan diinta xaniifka aan ku wanaagsanaan laakiin habkii aan u wada noolaan lahayn aan ku wanaagsanaan weyno sax ma aha maantaan helnay habkii aan ku wada noolaan lahayn wixii naga dhimanna waa usoo dhammaystira doonaa wixii naga sida aan rabno ahaana waa ka hagaagsan doonaa laakiin aan ku shaqayna isagaas waxaan leeyahay soomaaliya ha midowdo soomaaliya ha nabadowdo soomaaliya sharafta iyo karaamada adduunyada ay ku leedahay aan u soo celino haddii alla yidhaah aad iyo aad aa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu